runtii waxaan dhihi lahaa dhowr qof ayaa sheegay, laakiin waxaan rabay inaan ku soo koobo wax yar oo ah sababtaan halkaan u taaganahay. taas oo ah waxaan kala kulmay xasan cali khayre markuu ra'iisul wasaaraha ahaa, iyo sidaan u arkay dadka inta badan waxay ka hadlaan dhibkii dhacay sida looga bixi lahaa. runtii waxaa la mid ah caqabadaha soo socda dunida. arrimaha dibadda haddaan ka shaqeyno waxaan ku qasbannahay inaan dalka qeexno, waxaa soo socdana maaragtay iska ilaalino, hogaamiyayaasha kalena aan wax dhaafsano. marka 2016 buugaan aqriyaa jirta oo aad caan u ah, uu qoray nin public administrationka wax ka qora. hogaaminta markuu macneynayo wuxuu yidhi hogaamiye waa qofka waxa sharciga u baneeyey, kartida dadka kartida leh iyo hamiga aan leenahay intaas ku keeni kara, abuuri kara space lagu shaqayn karo. runtii markaa arkay xasan cali khayre isku dayigiisa shaqada dadaalka uu sameynayay, yacni ma ahi dadka tuhunsan inuu wax qaban karo, waxaan ka mid ahay dadka huba inuu wax qaban karo, booska hogaamintana buuxin karo. sidaas daraaddeeda waxaan rabaa inaan ku soo koobo waqtiga hadda lagu joogo. dad badana waxay sheegaan hogaamiye la jaan qaadi kara waqtiga lagu jiro. maxaa laga wadaa la jaan qaadi kara? waxaa laga wadaa hogaamiye fahansan adduunka xaaladda maanta marayso, hogaamiye fahansan caqabadaha soo socda, hogaamiye korontada markay naga degtay 1990 dee caqabad ugu weyn oo dowlad qabsan karta waxay ahayd dowlad daris oo kusoo duushay. maanta waxaa inoo jooga waxa la dhaho non state actors. caqabadaha ugu weyn ee amniga adduunka waxay ka imaanayaan hackers, dad bangigaada dhacaya, al-shabaab, maxaa la dhahaa qolooyin kale oo is abaabulayo. marka amniga, arrimaha dibadda, horumarka, deen cafinta haddaa laga hadlay, deen cafinta waxaa ku qasban tahay inaad xallisid umuuraha ku haysta gudaha dalkaada si aad u heshid kalsooni abuuritaan. marka waxaan ku soo koobayaa xasan runtii inaan halkaan u taagana inuu yahay qof leh kartidaaseeto hogaaminta iskugu keeni lahaa iyo adkaysi iyo qof madaalo inuu yahay. waxaan rabay inaan qiso yar sheego oo aan runtii ku xoojinayo. waxaa jira annaga dad culamo aan nahay, sidii suldaankayga halkaan ka sheegay, nina culammadii u diyaarinayo meelo inuu u diro say dadku wax u baraan, ayaa nin shiiqa waxaa loo diray jasiirad oo bridge leh, macnaha buundo leh, magaalo kula xiran. shiiqii soo diray wuxuu yidhi marka igu soo warceli sidii aad u xallisid problemada halkaas ka jira. problemada halkaas ka jira saa u xallisid igu soo warceli oo yidhi. ninkii shiiqa ahaa jasiiradda jooga wuxuu la kulmay, waxaa la yidhi duufaanaa soo socoto, sayntistayaalaa waxay sheegeen inay duufaan xoog la soo socoto. shiiqii meesha loo diray wuxuu yidhi waxaa ilaahaan baryeennaa oo wax tallaabaa ma qaadeen, ilaahaana badbaadinaya. waxaa loo soo maray buundooyinkii, baabuuraa loo soo diray, waa diiday, wuxuu yidhi ilaahaana badbaadinaya. buundadii waa jabtay, biyahaa ku bilaabmay, waxaa loo soo diray dooman. markaasuu yidhi may, ilaahaana badbaadinaya, doomanka raaci mayno. geed ayuu fuulay oo markii biyaha bateen helicoptera loo soo diray, dadkii qaarna waa laga waday. wuxuu yidhi may, ilaahaana badbaadinaya. nasiib wanaag waa baxsaday, laakiin magaalo jasiiradii biyaa qaaday. shiiqii culammada waxbaro u tegey. markaas shiiqi wuxuu ku yidhi shiiqow ilaahay waa baryey imana badbaadin. markaasuu wuxuu yidhi sheekh soo baabuur laguma soo dirin? haa. soomaalida soo raaci weyn? haa. maxaa uga hartay? soo doon laguma soo dirin? maxaa uga hartay? soo helicopter laguma soo dirin? maxaa uga hartay? marka hadda soomaaliya haddaa hogaamiye aanan daalayn, waxqabad leh, dulqaad leh, waqtigiisa jooga, aad ilaahay ka baryayseen waa haystaane tii sheekha ku dhacday siduu ku dhicin. waa mahadsantihiin.